website-ka warcusub media warcusub.com waxaa u suurta gashay inuu waraysi la yeesho maxamed sheekh cusmaan jawaari qoontaada iyo experience-gaaga wax yar warbixin ma naga sii kartaa anigu asalkayga macallin aan ahay macallin aan ku shaqaysanayay inkastoo waa dambe aan siyaasaddan haddana galay dowladdii oo militariga ahayd yani jagooyin badan oo maamulka ah ayaan u badnaa ilaa heer waxaan ka gaaray maamulka ilaa xog hay joogto aanoo soo maray agaasimo guud ilaa xog hay joogtaan ka gaaray dabadeedna waxaan ka mid noqday xildhibaanadii baarlamaankii hore jagooyin siyaasi aan waan soo qabtay ilaa wasiir ku-xigeen ilaa wasiir oo laba wasaaradoodna wasiir aan kasoo noqday laba wasaarood kalena waxaan kasoo noqday wasiir ku-xigeen oo xildhibaanna waan ahaa dowladii siyaad bare dowladii kacaanka ayaa kusoo jiray ka horna macallinaan ahaa haddana macallinimaan u noqday kaanoo macallinimadii ku jira haddana la ii yeeray inaan ka mid noqdo qolada khubarada ah maadaama aan ka mid ahaa dadkii wax ka qoray guddigii hore 1989 loo yeeray oo soo saaray dastuurkii 90 ayaa ka mid ahaa marka waxaa la yidhi dadkii khibrad u lahaa hala raadshaa la yidhi annagoo 9 qof ah ayaana loo yeeray oo khubaro ah dad oo wada PhD ah iga darajo sareeya laakiin aniga oo yani waxbarashadeedii waxay ahayd xagga qaanuunka ayaa jaamacadda kaga baxay su-aal u dambaysa aan jeclaan inaan ku weydiin waxay tahay Soomaalida maxaad ku waan leed guud ahaan walaal waxa aan aad ugu boorin lahaa shacbiga Soomaaliyeed in maanta dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin hiilo waxaan u hiilin karaa isla shacbiga waxaan wax ka bedeli karaa xaaladda maanta jirta isla shacbiga in la dhaafo yani la yara qof walba maaragtaa uu wax ka sii daayo ama iska sii daayo dantiisa shakhsiga ah oo tan guud la fiirsho halka su-aal isweydiinaya ay noqoto war sidee baan uga bixi karnaa xaaladdan oo aad iyo aad dadka ugu dhibtoodeen yani dhibaato dadkana oo kala firdhay 5 qaaradood tagay seeba loo soo ururin karaa kuwii gudaha ku jiray oo nolol aan haysanin oo maalin walba xabadii ka caray seeba looga bixi karaa ka bixidda maanta lagaga bixin karo Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waxa weeyaan inakoo hal qaanuun ama sharci oo aan ku kala dambayno ku go'aansana kuna dhaqanna aakhiradeen adduunyadeen hadday noo tooso aakhirana waa u shaqaysan karnaa hadda waxa weeyaan adduunyadii aadan nabad ugu noolaan karin aakhiradii sideeba camal wanaagsan loo samaystaa camalka wanaagsan la samaynayo maxanta waxaa ka mid ah in lagu dadaalo sidaan u heli lahayn dastuur aan ku kala dambayno oo talinta sharciga ay dambayso saa daraaddeed hala iloobo danta shakhsiga ah hala iloobo dadka u ololeynaya qabiil hala iloobo maxaa la yidhaahdaa maxaa aniga iigu jira qof kale dad kale aad sugaysa ma jirta qof walbo meesha aad isku ixtiraamto aad isku xilqaanto waa lagama maarmaan dhul waa haysanaa alxamdulilah ilaah baana siiyey shacbina waa jiraa alxamdulilah waa Soomaali waa joogaan waxaa maqan gobonimadana waxay ku jirtaa in aad leedahay xeer iyo qaanuun lagu kala dambeeyo talintana ay u sareyso sharciga aad iyo mahadsantahay adaa mudan walaal